odayaasha iyo culimaadudiinka ku dhaqan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxay tacsi tiiraanyada u direen ehelkii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen laba dhalinyaro ah oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ayaamihii la soo dhaafay lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. badan dhalinyarada ayaa waxay ka soo jeedeen magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. wiilashan dhalinyarada ee lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray Axmed Cabdulqaadir Cabdilaahi iyo waliba sidoo kale iyo Xasan Maxamed Cali, ayagoona alla uga bariyay eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen in Ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan, sidoo kalena ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya in ay cadaalad hor keento cidii dilka u geysatay. Allah ha u naxariistee labada dhalinyaro ee ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee lagu dilay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. aan ku sugannahay Buuhoodle aanu halkan isugu nimid tacsi aanu ka dirayno labadii wiil ee lagu dilay xamar ee gacanta ka xaqdaran ay dishay Axmed Cabdulqaadir Cabdilaahi Maxamed iyo ninka la yiraahdo Xasan Maxamed Cali. labadano gacan ka xaqdaran ay ku dishay usbuucan xamar yaanu ka tacsiyedeynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala eheladii iyo qaraabadii iyo dadkii ay ka baxeen iyo ummadda Soomaaliyeed iyo muslimiintaba Ilaahay subxaanahu wa ta'ala samir iyo iimaan uu ka siiyo, iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto, gurigii adduun ay joogeen guri ka khayr badan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu geeyo, dambigoodana uu dhaafo, eheladii iyo qaraabadiina Ilaahay subxaanahu wa ta'ala samir iyo iimaan uu ka siiyo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaanu weydiinaa dadkii waalidka u ahaa iyo qaraabada in bedel khayr qaba iyo ciwad wanaagsan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka siiyo, iyagana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha u naxariisto, annagana samir iyo iimaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga siiyo. aamin aamin. waxaanu tacsi tiiraanyada u diraynaa qoysaskii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen labada nin labada habeenay isku xigta la dilay habeenka iyo maalinta yaanu tacsiyeynaynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen. dowladda federaalkana waxaanu ka codsanaynaa tacsi dabadeed in ay cadaalad ay helaan oo dadka la laynayo inay cadaalad helaan. dowladda federaalka waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo hay-adaha amnigaba waxaanu ka codsanaynaa, khaasatan taliyaha bilayska waxaanu aad uga codsanaynaa inay cadaalad helaan oo dadkaasi ay cadaalad helaan. aan u dirayno laba wiil oo ku dhintay toddobaadkan, Axmed Cabdulqaadir iyo ninka la yiraahdo Xasan Maxamed Cali oo toddobaadkan ku dhintay Muqdisho. waxaan uga tacsiyeynaa eheladii iyo qaraabadii iyo ehelka ka dhinteen. Ilaahay sabir iyo iimaan ha siiyaanu leenahay, Ilaahay sabir iyo iimaan ha siiyo, iyagana jannada firdawsa Allah ha geeyo. Ilaahay waxaanu weydiinaa Ilaahay jannada firdawsa geeyo, Ilaahu gee, Ilaahu dadka ka dhinteenna sabir iyo iimaan ka sii, Ilaahu ka sii. waxaanu leenahay inamadaas waxay ahaayeen ciidamada booliska ee federaalka, gacan ka xaqdaran baa dishay. Ilaahay waxaanu ka baryaynaa cidii dishay waxaa la leeyahay dad qabaa'il baa kale ka soo jeeda dadka dilay in Ilaahay burburiyo, Allah burburiyo, Allah magtoodii iyo diyadoodii iyo xaqoodii dadkii lahaa ha burburiyo, iyana Allah ka soo dhaweeyo. dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay xil iska saaraan nimanka la dilay mar haddii ahaayeen askartii amniga ee booliska inay fududeeyaan. alayhi wasallam. halkan waxaa isugu kaaya keenay geeridii ka dhacday Muqdisho ee lagu dilay labadii wiil ahaa askarta Soomaaliyeed. dadkoo dhan baa wiilasha laga dilay, reerahoodii iyo guryahoodii ha laga tabo, laakiin Soomaali oo dhan baa wiilasha laga dilay. Ilaahay ha u naxariisto, bedelkoodiina Ilaahay hana siiyo. ciidankii wiilasha laga dilay la waxaanu ka codsanaynaa dadkii dilay inay u soo qabtaan. waliba khaasatan waxaan sii codsanayaa waa isdaqaan ehel baan nahay, Soomaalidu meel walba waa joogtaa. dadka agtooda lagu dilay ee la tuhunsan yahay wiilasha inay wiilashoodu dileen waxba yaynaan is aanaysan.
wiilal ha fududeeyeen oo sharciga ha la hor keeno oo amniga ha u sheegeen ciddii dishay oo maanta waxba inoo soo ifaya Soomaalida dib iyo isugu noqon hore waxaan tacsi u dirayaa labadii reer ee ay marxuumiinta la sheegay ay ka geeriyoodeen baan tacsi u dirayaa si khaasa waxaan ugu dirayaa inaan hooyadii iyo aabbihii maan aqoonni labada shakhsiye aan aqaanay xayaad khalaf iyo xayaad khalaf iyo cabdulqaadir baan tacsi u dirayaa ilaahay waxaan leeyahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo inankiinni gacan ka xaq daran baad dishay waxba laguma lahayn waa jannadiibuu isagu aaday in ilaahay samir iyo iimaan idinka siiyo baan ilaahay idin weydiinaya iyo labada waalida kale ee ehelkaaba samir iyo iimaan ilaahay ha idin siiyo isagana waa saas oo kale gacan ka xaq daran baad dishay waxba laguma lahayn waxaan u gudbayaa sidaa odayaashu sheegeen Soomaaliya koonfure waxaa lagaa bartay qof la dilo oo aan wax dila la garanayn gobollada kale lagama baranay koonfur baa laga bartay waa masiibo dil labaad weeye waa dil labaad marka hore qofkii waa dhintay marka dambana waa la duudsiyey waddanka dalka oo dhan bay dulli ku noqonaysaa dalka oo dhan bay waxay ku noqonaysaa dulli assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tacsidii odayaashii ugu horreeyay baa dhammeeyey ama dee waxaaban ahay anigu khaasiyan dadka loo tacsiyadaynayo waxaan ku darayaa oo aannu codsanaynaa labada wiil ee ilmaadeerka ah ee reer Buuhoodle ee labada habeenay isxiga la dilay in meel la soo saaro meel lagu ogaado cadaalad ay helaan cadaalad inay helaan dawladdu iyada gacan dheer shaaracna waa la sheegayaa in shaaracyaal meelo shaarac lagu dilayna waa la sheegayaa waxaan leenahay nimankaas inay cadaalad helaan Soomaalina dee aan dib la isugu celino waxaaba laga yaabaa raadad badan inay jiraan oo annaga qudheedana soo gaadheen marka waxaan leeyahay nimankaas inay cadaalad helaan dawladda iyada gacan dheer iyada awoodle iyada sharci looga dambeeyaa waxaan leeyahay cadaalad ha helay nimankaasu waxaan joognaa magaalada gobolka Cayn degmadiisa Buuhoodle waxaanu ka tacsideynaynaa laba inan oo lagu dilay Muqdisho oo labaduba ay ka tirsanaayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Haram Cad iyo Gorgor labada ciidan ay ka tirsanaayeen labada inan oo magacyadooda la sheegay marka hore waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kulli nafsi daaqatul mawtka waa lagu xukuman yahay marka xigana waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii ay ka tageen ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo marka xiga waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliyeed waxaa la leynayaa ma aha shakhsi waa quwaddii Soomaaliyeed iyo qarankii Soomaaliyeed waxaa lagu dilay haykalka ciidannimo iyo xooggii ay ka tirsanaayeen ayaa lagu dilay inamadaas marka hore waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo generaalka ciidamada Odawaar Raage ciidanka la laayay waa ciidankaagii waa raggaagii waa garabkaagii waxaan ka codsanaynaa oo si gaar ah uga codsanaynaa generaalka ciidamada haysta Odawaar Raage in uu nimankaas soo qabto oo waxa weeye cadaalad la mariyo oo la soo qabto oo la fududeeyo hadday beel ahaayeen iyo hadday xaq jir ahaayeen iyo hadday balaayo kala ahaayeenba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaynu weydiisanaynaa inagoo waxaanu joognaa Buuhoodle reer Buuhoodle isku dhanbaanu nahay odayaal iyo culimo iyo codkar iyo dhammaantayo waxaanu tacsiyeynaynaa awalu dadkii halkaa ku dhintay askarta ahaa iyagoo isku duuban mar labaad waxaanu tacsiyeynaynaa labadii wiil ee reer Buuhoodle iyo qoysaskoodii ilaahay waxaanu weydiisanaynaa marka hore in ilaahay inuu iyaga naxariista janno siiyo ilaahay inuu naxariisto jannatul firdaws in ilaahay geeyo yaanu ilaahay ka baryeynaa
marka labaadna waxaannu ilaahay weydiisanaynaa annagoo ka mida qoysaska la tacsiyeynayo in ilaahay ciwad khayr qaba ku beddelo oo noogu beddelo oo hooyo iyo aabba iyo walaal iyo adeer iyo ehel ilaahay uu bogsiiyo kuwa maanta ka xun geerida marka hore waa xaq ilaahay baa qadaray laakiin geeridu naxdinteeda iska leedahay ilaahay waxaan ka baryaynaa beddel khayr qaba inuu noogu beddelo waxaan ku darayaa nimanka dawladda ee xamar joogow askargii ku waardiyeynayay baa la dilayaa wax dilayna la garan maayo cid idinka yeelaysaa ma jirto labadaa nin xaqoodii baannu idinka doonaynaa haddaannu reer buuhoodle nahay kan waxaannu ilaahay uga baryaynaa labadii wiil ee reer buuhoodle ee xamar lagu dilay ninna habeenkii la dilay ninna subaxii la dilay ninna maalintii la dilay inuu ilaahay samir iyo iimaan naga siiyo dhammaantay guud ahaantayaba iyo gaar ahaanba qoysaska ay ka baxeen waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda kala duwan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidanka biliiska taliyaha ciidanka militariga odawaa xijaar dhammaanba waxaannu ka codsanaynaa in hawsha labadaa nin ee reer buuhoodle ee ciidanka dowladda ahaa ee waajibaadka qaran intay buuhoodle ka tageen xamar u tegey in haddii wixii dilay la waayo way dhacdaa qof la dilay oo la waayo wixii dilay in xaqoodii ay si fudud u bixiyaan oo fududeeyaan oo waalidiintii waa u imaanayaane hawshaa ay xil iska saaraan maxamed cali bile warbaahinta qaranka Soomaaliya buuhoodle